أنا أبو حنادي هوري قدالبو لا إله إلا الله هيا فديري كلا ديري مستر ديري وحنكو kulanti waan daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran channelkan Shabalaala tiyub ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa King Araash oo mar kale weerar jiha walba ah ku soo qaaday Sharma Boy gantaala culus oo baalaha looga rifay Sharma dagaalka oo meel xun gaaray inta aanan ku bilaabin warbixintan xasaasiga ah haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee aad ku timaado channelkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe aad saarato furtada gambareelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada xiisaha leh ee aan halkan ku soo baahiyo takalna waxaan maqlay Soomaalidu likes kuma saarto ma garanaysaa fiidiyoga like saara waxaan rabaa inay fiidiyoga like saartiin inay lacag ama qaadaye like iska saar ha ku hadlaya adiga dhibkay daawanaya inaan walaal muuse laakiin ma wali fanaanka caanka ah ee King Araash oo kaashanaya alfanaan AK qanciye ayaa mar kale gantaalo culus iyo weerar jiha walba ah ku soo qaaday alfanaan Sharma Boy dagaalka labadan fanaan ayaa darnaa maalmihii ugu dambeeyay ma ahan markii ugu horeysay ee King Araash uu hees ku bahdilo Sharma Boy bishan gudaheeda ayay ahayd mar sidan oo kale King Araash uu hees garbash ah ku weeraray alfanaan Sharma Boy King Araash oo markaan garabka helaya fanaanka da'da yar ee AK qanciye ayaa soo saaray hees garbash ah taasoo lagu bahdilayo xidiga Muqdisho alfanaan Sharma Boy sanadihii ugu dambeeyay Sharma Boy ayaa dagaal joogto ah kala kulmayay fanaaniinta heesaha raabka qaada dagaalkii ugu horeeyay ee uu galo Sharma Boy waxa uu wajahay fanaanka weyn ee ilka casaqays dagaalkaas asiga oo ku jiro ayaa haddana waxa weerar ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ku soo qaaday fanaanka da'da yar ee Idabos intaas kadib waxa dagaalka ku soo biiray weerar toos ahna soo qaaday alfanaan King Araash mu'aashaqiinta jecel Sharma Boy ayaa ku doodaya in dagaalka lagu hayo fanaankooda uu yahay mid looga maseerayo horumarkiisa yeelkeeda alfanaan King Araash iyo AK qanciye ayaa soo saaray hees garbash ah heestan waxa lagu magacaabaa dhaadhaan haddaba erayada garbaashka ah ee Sharma Boy baalaha looga rifay waxa kamid ah dhaadhaan dhamsaas dhareer hadalkeen waa bareer hadafkeenu waa dhareer midhahaad guratay qaleel hadalkeen waa bareer hadafkeen waa dhaadheer midhahaad guratay qaleel ya haddana yaa sigba dhaadhaan dhamsaas dhareer hadalkeen waa bareer hadafkeen waa dhaadheer midhahaad guratay qaleel King Araash oo gandaaladiisa culus wali ku sii wada siina jafaya Sharma Boy ayaa haddana yiri fanka laga galay qalad hees been baa lagu galay balad dadka loo dhiibay dalab murti baa lagu dhaafay orod fanka laga galay qalad hees been baa lagu galay balad dad baa loo dhiibay dalab murti baa lagu dhaafay orod go iwa sheekada haddana iwa sheekada fanka laga galay qalad hees been baa lagu galay balad dad baa loo dhiibay dalab murti baa lagu dhaafay orod alfanaan AK qanciye oo asna ku soo biiray dagaalka lagu hayo Sharma Boy ayaa dhankiisa ka jafay Sharma AK qanciye ayaa yiri ma ahan qof loo galo kan waaba isqorqor meel walba marmar dacaskiisa banjar noloshiisu waa laba laga jaray hal xarigan qaade isdaldal sheekadoo dhan naga bedel maba aha qof loo gala gar waa isqorqor meel walba marmar dacaskiisa banjar noloshiisa waa laba laga jara hal waa wax dhan hal xirigan qaade isdaldal sheekadan oo dhan naga bedel dadkii dadkan qabsada masaakiinta bedel naga bedel waxa mar kale maaga qaatay King Araash oo ciil badan u qaba Sharma Boy eraya sawaariq ah ayuu Sharma Boy baalaha ugu rifay King Araash ayaa yiri haya af dheere kala dheere master dhareere waxaan kugu dhufanaa lixla dheere waxa lagu duugaa bisha kaleeto haya af dheere kala dheere master dhareere waxaan kugu dhufanaa lixla dheere waxa lagu duugaa bisha kaleete haya af dheere kala dheere master dhareere waxaan kugu dhufanaa lixla dheere waxa lagu duugaa bisha kaleete go iwa sheekada King Araash oo seeftiisa la soo baxay rabana Sharma Boy inuu laba cad ka kala dhigo ayaa yiri isbasito turufatoro matihid atoro amba isbatoro waxa tahay tugdoro taageerahayga Toronto kan ku dhajiya Toronto sidoo asiga u baroorto waryaa adiga soo kada loobso
despacito turufatoro mathiiqatoro ama isbatoro waxaatahay tugdoro doro taageerahayga toronto kan ku dhajiya koronto sidoo asigaa u barorto wareaadi soo kada lobso une duwe re amaana allah amaana like saara share garaya fadlan saaxiibayaal nadhirigeliya share geliya dadka gaarsiiya hadii ay gudmaayo like na saara kulligiin hadii ay gudmaayo salla calee ereyadaas iyo kuwo kale oo xanuun ah ayaa baalaha looga rifay alfanaan sharmaboy waa markii labaad ee uu kingi araash gantaalo culculus ku soo weeraro sharmaboy laakiin ilaa iyo hadda wax jawaab ah kama uusan bixin alfanaan sharmaboy jarma oo waqti qurux badan ku qaadanaya dalka jabuuti ayaa la filayaa inuu halkaas ku qabto showgii qarniga warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in sharmaboy ay dabka u soo saaran tahay hees garbaash kulul ah inuu ka xun yahay waa macquul soo duul karti iska baar kor soo fuul كرسوفول صبر بار كنت بقار كمهل ضد كقار صاحب نك نجا بار شركة حق السيبة حق السهر مسلكم معنا دوفار لكن كانوا واقار وحس وافار ما أنا الله أمانة لايك سارة شير قرية فضلا صاحبيال ندي رجلية شير قلية ضد كقارسية دي لا يكود ماي لايك نسارة كل جيل هدي لا يكود ماي ugu dambeyn daawadaha sharafta lahow labadan fanaan midkeed taageero u tahay ma kingi araash ayaa taageero u tahay mise jarmaboy fikirkaaga waa inuu muhiim ee qaybta hoose commentiga inagula wadaag waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawata muuqaalkan daawade haddii ay tahay booqsadaadii ugu horeysay ee aad ku timaado janalkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe aad saarato furatana gambareelkaasi ay ku soo gaaraan barnaamijyada xiisaha leh ee aan markaan ku soo baahiyo muuqaalkan muuqaal lamid ah inta aan ku kulmi doono nabadiina noola kulante iyo amaana allah صدق ما قال لك مشاعر بجاد لها بركي سكري حبت وضع أما حيبت أسر سلو عياد كدا بعدا نعد كدا قدر دعدا سغدها با 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 شوف فك دعدا